السلام عليكم أصحابي maanta iyo fiidiyogeena waxaan ku taabanaynaa internetka qarsoon ama deep dark web oo malaha aadan adigu ogeyn inuu wax jira yahay. waxaa laga yaabaa inaadan maqal internetka qarsoon, laakiin xaqiiqda ayaa ah in internetku uu yahay malaha waxa ugu sareeya oo ay bini aadami ikhtiraaceen, laakiinse adigu sideedaba internetka maxaad ka taqaanaa? si aan uga jawaabno su'aashaas aan ku kala qaybiyo internetka sidiisaba inta uu u kala baxo. internetka waxa uu u kala baxaa saddex qaybood oo la kala yiraahdo qaybta sare oo ah surface web oo ah inta aynu anagu mobilkayaga amaba computerkayaga ka aragno sida website-yada Facebook, Google iyo TikTok. qaybta dhexe oo deep web ah oo internetka ka qarsoon qaybtiisa koowaad ah aadna u baahan tahay si aad u isticmaasho inaad taxaddar badan muujiso. iyo ugu dambeyn qaybta la yiraahdo deep dark web oo ah meesha xogta ugu khatarsan ee caalamka lagu kala qarsado, dadka isticmaalana ay yihiin kuwa kala iibsanaya wax walba oo aadan si toos ah uga ganacsan karin, sida mudaharaadka, sirta dawladaha laga xado iyo xitaa inaad kireysan karto qof kuu fuliya falal dambiyeed sida haddaad u baahato inaad qof khaarijiso oo kale. cajiib yaa aan taariikh yara eegno qaabka uu ku yimid internetka sidiisaba iyo qaybahan qarsoon, sidoo kale aan eegno cawaaqibta ay leedahay inuu shakhsi aan aqoon badan u lahayn uu iska galo internetka qarsoon. abaara 1969kii ayaa laba arday isku direen fariintii koowaad oo laba kombiyuutar loo adeegsaday. markaas waxay isticmaaleen ARPANET oo ahaa aabaha internetka amaba qaybihii koowaad ee internetka. xilligaas laba kombiyuutar oo fariin isku dirta waxay ahayd fikir aan la aamini karin, laakiinse tani waxay hirgelisay in internetku aynu hadda isticmaalno ama naqaano la asaaso. hase ahaatee intuu internetka jiray ayana waxaa garab socotay bulsho doonaysa inay u adeegsadaan falalka dambiyada ah ee ay dawladaha caalamka kala dhuumanayaan amaba isha caadiga ah. xaqiiq waxaa ah kala iibsigii koowaad ee internetka wuxuu dhex maray laba arday ee jaamacadaha MIT iyo Stanford dalka Mareykanka kala dhiganayay sanadku markuu ahaa 1970kii, waxayna kala iibsadeen daroogo. hase ahaatee 1980yadii dad badan ayaa isku dayay inay abuuraan waxa la yiraahdo data haven amaba meelaha xogta lagu qarsado ee wadamada sida Latin America oo aan awood badan saarayn xogaha. dhexdhexaadkii 1990kii ayuu isbedelay jawiga internetka markii la abuuray tiknoolajiyada loo yaqaano Tor waxay u taagan tahay hage internet sida Google Chrome oo kale, hase ahaatee lakabyo badan leh kuwaas oo aan si sahal ah looga gudbi karin. haddii la fududeeyo waxa weeye inay tiknoolajiyadani ilaalinayso qofka isticmaalaya internetka qarsoon meesha uu joogo, magaciisa iyo xogtiisa oo idil, ayadoo u fududeynaysa inuu qofka dhuuman karo. si uu marka internetkan qarsoon uu u jiro waxaa muhiim ah in uu Tor tiknoolajiyadan la yiraahdo ay ku xiriiriso serverro badan oo caalamka geesihiisa kala yaala, taasoo adkeynaysa lakabyadaas badan helitaanka shakhsiga isticmaalaya the dark web amaba internetka qarsoon. waxaad se isleedahay tiknoolajiyadan waxaa asaasay tuugo iyo dambiilayaal ku dhuumanaya, laakiin maya, ee waxaa waax ka tirsan ama ka mid ah difaaca waddanka Mareykanka ayaa asaastay si ay surdoonkooda aan loo ogaan meelaha ay joogaan iyo xogta ay dirayaanba. Tor sidiisaba waa sida Google oo kale oo aad internetka qarsoon ka geli karto, laakiin si kuwo kale oo badanna waa ay jiraan. 2015kii waxaa la cadeeyay in xogta internetka dhex taal ay 4% tahay xogta aynu anagu Google iyo Facebook iyo YouTube aan ka arki karno. hase ahaatee
boqolkiiba 95 kalena ay tahay xogta qarsoon amaba internetka qarsoon ayay ku dhex jirtaa. cajiib. xaqiiqda ayaa ah in 60ka website ee ugu waaweyn internetka qarsoon ay 40 jibaar ka weyn yihiin internetka aan anagu maalin kasta aragno. ka waran taas adigu hadda maxaa ku jira meeshan bal? meeshani waa meel aad wax walba ka helayso cidinana ku ogaan karin. caruur la xado, daroogo la kala iibsado, dad la dilayo oo aad iibsan karto in qof lagu khaarajiyo, dawladaha oo isjaajuusa, iyo in xitaa baasaboor kasta caalamka asagoo caadi ah aad iibsan karto. xogtaada bangiyada, nambaradaada sirta ee bangiga oo qiimo ahaan ka jooga suuqan $160. intaasoo dhan waa macquul sababtoo ah cidina kuma taqaan waxa aad tahay iyo meesha aad joogto. lacagta badanaa ka shaqeysa waa Bitcoin iyo kuwo kale oo cryptocurrency ah. website-ka ugu caansan internetka qarsoon magaciisa waxa weeye Silk Road. magaciisuna wuxuu ka soo jeedaa jidadka ganacsiga ee qarniyadii tagay iskuna xiri jiray Afrika, Carabaha iyo Yurub. Silk Road waa sida Amazon oo kale, hase ahaatee 40 jeer ayay Amazon ka weyn tahay. website-kan waxaad ka iibsan kartaa wax walba oo faalisa ah, baasaboor kasta, darooga iyo wax kasta oo xun. lacagta aad u adeegsanaysana badanaa waa Bitcoin. waxaa muhiim ah sideedaba inta aadan gelin ka hor internetka qarsoon inaad taxadar badan muujiso, waayo waxaa la hayaa bulsho badan oo moobilkooda tuugo usoo dhacday kadibna kaamara laga duubay, wixii xog ah oo ku jirtayna lagala baxay. waxaa la hayaa dad la dabagalay oo dhibaato loo geystay sababtoo ah dark web ayay galeen ama internetka qarsoon. marka waxaa muhiim ah walaalayaal inaan iska ilaalino the dark web. hase ahaatee waxaa sidoo kale muhiim ah inaan ogaano in uu jiro